وندهيا وكانوا يفرمي أكون بقول هاي وإيو حسين هاي وكاس السوم سوم كواحد أمهم سن صدح ذان يا أمهم سن صدح ذان وحويه كانوا مركز سمين سيد new meeting عصب مركز سمين سيد وايه كانوا مركز كبير سيد وايه join meeting يعني مذا جروب وحيي أو meeting وحكو صدر اللينكي وعنو كيل وقت شركة كسو غيب قال زومكا بس كان لي كل فنسا واحد قلنسا ايدي meeting يو باسور meeting لابد قلني ايدي مكاد قلنسا سوى وحكو لها يا باسورك قلنسا كبعدين اوتوماتيك هامبو كوسو سارايا قفكاس مركا هوستيغا اهو oo xiriiriyaha ka ah groupka baa markaas admin ku leeyahay ku soo diraya saasad groupka uga mid noqonaysaa kaas waa qodob midkan kale student kaas waxa la dhahaa oo markaad maartay oo iyadana waa ka hadli doonaa qayb gooni ayaa u hadli doonaa oo markaad sameynaysid group meeting mid waa mar oo maartay maxaa oo adiga kaliya iskaga hadlaysid oo qof saaxiibkaaga ninka u diraysid oo aad kala sheekaysanaysid oo qofka aan soo dhaxgalaynin waa midaan oo kala waaye midaan kala taan furo waa kan hadda waa mugdi waaye waxna maartay la arki maayo markaas darteeda waxaan iska xirayaa kaamirada ayaan iska xirayaa ayaa iska xiraa waa kana kaamirada waa iska xiray halka markaad new meeting markaad ku dhufatid wuxuu ku leeyahay join with computer audio yes baa ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid hadana kaamirada waa iga xiran tahay yani waa mugdi si fiican maartay wajigayga loo arki maayo marka halkan waa codkii waaye codkaad iska xiraysaa marka adiga qofka maartay oo hostiga ah oo groupka maamulayo oo dadka maartay admin u dhahayo oo shirka maartay qaabinayo waxa laga rabaa inuu iska xiro halkan codka ah inuu iska xiro oo click uu ku dhaho halkan videoga ahne oo click uu ku dhaho ileen lama rabo asaga in maartay maxaa la arko ileen waa ninka dhan oo groupka maartay meetingka maamulayo oo waxagayo waaye tusaalo kale waa macalinka cashirka sharaxayo kale asaga duu rabo uu furan karaa haduu sirwin uu iska xiri karaa waxa ku soo haray halkan baa ku soo haray manage participants waa waxa weeye waa dadka ka soo qayb qaadanaya groupka tusaale kale halkan waa hal qof waaye waa aniga kaliya waaye qof kale markii uu soo darsoomo halkaas waxa ay noqonaysaa laba qof taas waa kaas halkaas oo ka arkaysa hadana waa arkana waa iga xiran tahay videogii iyo maqalka caadiga labadaas waa iga xiran yihiin qof dadka kale maartay hadii badiyiin oo kale halkaan ay ku soo taxmayaan halkaas ka wada arkaysaa hadda waa ka meeshaas waxa ku qoran hal qof ka soo qayb galaha waa hal qof waa kaasna waa qaybtan kalena waa qaybta waxa weeye oo sheeg maaseedkii iyo waxyaabaha tusaale kale dadka markuu xagaa ku soo saaro kale midkaad rabtid oo maaseed ahaan ugu diray maaseedkaas aad kala hadlaysaa ama wax maartay aad u dirayso sir oo kale taas ugu diraysaa share screen baa ku soo hartay share screen waxa la yiraahdaa tusaale kale qofka maartay maxaa oo markuu wax cashir u sharaxayo kale sidaan asoo cashir ma sharaxi karo waa inuu sidaan maartay uu ka bedelaa sida qaabtu u bedeli kara wuxuu u bedeli karaa leedahay share baa leedahay ka bacdina waxa leedahay share screen baa leedahay waa kaasa share screen markaad dhidid share screen ka dhidid waa ka kor buu fuulayaa ka bacdina cashirka caadiga oo sharaxaysa hadii cashirka uu ku jiro maartay maxaa documentiga oo ama desktopka haduu ku jiro desktopka ka tagaysaa cashirkaas aad u sharaxaysaa waa kaasa hadii aad rabtid inaad ku soo laabatine stop sharing baa leedahay waa kaas waa ku soo laabanaysaa iyaduna qodob kan waxa weeye waa recording waa wax duwaya waaye iyaduna muhiim ma ahan
marka meetingka khudba sidaas qofka waxa laga rabaa markii maartay oo dadka badan yihiin oo kale tusaale kale iyadana waa ka hadlayaa halkaas maartay ay ku soo wada taxamayaan dhamaantooda codadkan markii uu mid hadlayo dadka dhan baa wada maqlaya dadka dhan baa wada arkaya marka iyadu waa qodobkaas waaye qodobkaasna waxa la yiraahdaa waa new meeting waa meeting cusub markay tahay waan iskaga bixinaa edit kaas waa fahanteen u maleynaa joinka soo galo joinka waa markii aad maartay aad ku biiraysid oo kale group oo kale tusaale oo kale waa ku sheegay waa kana ana magacayga Abdixakiin Axmed ayaa la yiraahdaa enter meeting ID or person link 9 halkaas ay gelinaysaa linkiga lagu soo diraayo oo group ama lambarkaaga lagu soo diraayo baa halkaas gelinaysaa markaad ID-gaas oo adigu waa 9 lambar waaye 9 lambarka markaad gelisid oo aad ku dhufatid asaa wuxuu ku leeyahay password geli password kadana waxa group ima waxaysana group meeting ima waxaysana marka waa waxaynaya wana arkaysaan insha Allah marka meetingkaas markaad ID number aad gelisid waa 9 lambar waa 9 lambarka markaad gelisid halkaas ku dhufanaysaa meeshaan oo maartay joinka ah joinkaas ku dhufanaysaa labadan meeloodna iska xirimaysid waayo waxa taa qof ka qayb qaadanayo groupka oo waxa la raaco codkaaga in la maqlo wajigaaga la arko halka waxa ku qoran do not connect to audio your time of my video hadaad halka falaaraha saartid codkaaga la maqli maayo kana hada falaar saartine la arki maayo wajigaaga marka muhiim ah inaad isticmaashid kabacdi join baa leedahay join marka dhigid passwordka ayuu ku leeyahay passwordka geli passwordka gelinaysa kabacdi si toos ah wuxuu ku soo saarayaa kaamiradii oo uu ku soo saarayaa markuu kaamiradii uu ku soo saaro qofka maartay hostiga oo groupka maartay xiriiriyaha ka ah kaasa markii dambe admin ku dhahaya oo kugu soo daraya markaas caadi dadka wada arkaysaa kaas waa aragteen kan waa markii waxa weeye waxa la isticmaalaa oo aad group sameynaysid oo kale group meeting oo kale tusaale oo kale waxa rabtaa ardayda inaad discussion sameysataan group meeting kan sameynaysaa group meeting xagan ayaa ku sharaxaya waa kana group meeting ka asagu waa uga duwan yahay new meeting ka maxay yeelay group meeting waa qofka oo hostiga ah oo maartay groupka dhan maamulayo oo dadka isku wada keenayo oo maartay tusaale kale waxa la yiraahdaa oo kale qofka maartay xiriiriyaha oo kale hebel waxaas ay soo jeedinaya hebel waxaas ay soo jeedinaya qofkaas kale waa qof xiriiriya oo isku xiraayo ardayda iyo ardayda kale dhageysanayso kana waa qofkaas oo kale waayo maartay wuxuu isku xiriyaa groupka dadka maartay maxaa ka soo qayb galayo dadkaas dhan buu isku xirxirayaa oo maartay hal meel ku wada kulsiinaya oo maartay qof kasta soo muuqaalkiisa la arkayo codkiisana la maqlayo baa qofka maartay maxaa fikirkiisa discussion-ka oo ku saabsan yahay oo kale oo ka hadlaya waad aragteen shirarba wuxuu kale oo muhiim u yahay oo kale shirarka maartay caadiga oo kale maartay maxaa shirarka duweynaha oo kale qof joogo Europe ama qof joogo maartay qaaradda Afrika ayaa wuxuu la hadlayaa qof kale oo joogo maartay qaaradda America qofkaas idin kolkaas oo kala hadlaya waxaad moodaysaa laba qof oo meel wada fadhiyo oo wada sheekeysanayo halkaan kale waa topic meeting maxay topic meeting waa mowduuca aad ka hadlaysid muxuu yahay oo shirka lagaga soo qayb galayo in baashan iska dir ma'an topic meeting maxay waxa ka hadlaysid tusaale kale discussion student ba maartay ku saabsan yahay maxaa topigeena bas discussion student ama presentation student halkaas ku qoraya meeshaan ku qorana meeshaan maartay oo ku qoran tahay my meeting baad ku qoraysaa wixii adiga aad u baahan tahay kale ma ahan adiga maartay maxaa wax maartay si qorays kalima hadafka aad shirkan u qabanaysid ba halkan ku qoraysaa haddii uu yahay shir ganacsi waxa leedahay conference business ama meeting business baa leedahay
waad garataa u maleynayaa halkaas baad ku qoraysaa hodhowti markii aa waxaysid waxaad arkaysaa linkiga waxaad arkaysaa hadda tusaale kale aan ku qorayaa okaaday waxaan ku qorayaa Somali waxaan ku qorayaa meeting student ku qorayaa meeting students baan ku qorayaa waad garateen u maleynayaa meeting students baan ku qorayaa waxa kale ku harsan meeshaan ku harsan wine kormee ayaa la kulmayaa waqtiga yacni waqtiga la kulmayo oo kale tusaale kale hadda caawa kale waxa weeye waa 15 bisha afraad 2020 ayay saacadii la kulmayaa 5 saac ayaa la kulmayaa ama 4 saac saacad muhiim ah waxa ka dhigan kartaa hadii adiga shirki waxay ku xiran tahay shirka goorta qabanaysid tusaale kale markii aad shir qabanaysid oo kale caawa waxa la yeenahay shir saacadaas shirkuna wuxuu soconayaa 2 saac kana wada taas oo kale waaye tusaale kale shirku wuxuu bilaabanayaa 5 saac habeenimo ama 10 saac habeenimo hada 10 saac habeenimo ka dhiganaa waxa ka dhigaa 10 saac habeenimo wakaasa waa 4 saac habeenimo ka dhigaa taas oo soo gareynaya ama 12 habeenimo u diisan kartaa haye 12 habeenimo ka u diisatid waa 5 saac waa 12 habeenimo halkan meeqa saac uu shirka soconayaa hada shirku wuxuu soconayaa 2 saac 2 saac daqiiqada raacsiinaysa ama maxaa la socdo kale tusaale kale 2 saac waxa la socdaa 2 saac iyo ka dhigana Yurubi shirkan wuxuu soconayaa 2 saac Yurubi 2 saac Yurubi shirku uu dhamaana bas xagan uga soo baxaya kan ka waxa muhiim ah halkan oo kale waxa weeye waa time zone waaye waa wadanka joogtid waqtigiis waaye haddana oo kale waxaan joogaa Uganda kala joogaa saasa u raadinaysaa ma ahan meeshaan maartay maxaa ahaa waqtiga waxa weeye oo maartay wadanka joogtid waqtigiisa oo kale waaye dad Soomaali joogtid Soomaali raadinay dad Canada joogtid meesha aad joogtid oo kale saas u raadinaysaa Mexico markaas meesha aad joogtid maartay saas u raadinaysaa waa example only waaye ee wax maartay dadkan caadi ah oo runa maahan waa example only wakaasa saas u raadinaysaa bas kabacdi waqtiga markaad heshid taas oo ugu dhufanaysaa markaad ugu dhufatid hadana hoos u soo degaysaa kama ka qaadaysaa qarto okay meeting ID waa kana meeting ID general automatic iyo personal meeting waxaad ka dhigaysaa general automatic ka dhigaysaa ilaa waxaan waa group meeting waaye halka waa ka soo baxaysaa request meeting password direct ka qaadaysaa waa soo soconay halkan maxaa tahay ma waxa taa qof ka qayb qaadanayo shirka mise waxa taa qof shirka hogaaminayo waxana qof shirka hogaaminayo halkan on ba ka dhiganayaa waa soo soconaya waxaan shirka ku qabanayo muxuu yahay ma telephone ba mise waa computer mise waa labadaba shirka waxaan ku qabanayo waa computer audio aan leeyahay bas halkan kala soo baxa computer audio markaan dhaho meeshan kala soo baxaya meeshan kala waa muhiim iyadana waxa weeye waxa weeye waa enable join before yani hadda waxaad ka dhigtay computer audio ka dhigtay bas qofkan wuxuu awoodaa inuu ku soo biiro qofka maarta xiriiriyaha ka hor yani intuu soo gelin ayuu groupka soo gelayaa waa qodobkan kalena ka qayb maarta uu ka socdo qodobadaas oo kale uu soo taxaya laakiin waxaad ka dooranaysaa qodobkan ah enable wait room yani wuxuu sugayaa wait room qofka maarta hostiga wuu sugayaa markii uu maarta uu soo galo waqtigii la gaaro uu soo galo admin markii la dhaho uu group saazarq uu soo dhahayaa kaasina waa qodob waa ka soo bixin inta kalena waxa ka bedeli mayno kabacdina waxa leeyahay save baan leeyahay saas waxa noogu samaysmay
group meeting waa kana wada group meeting wasaas nagu waxaysan qaabkii loo diraya marka hadda group meeting waa waxeenay waa kaas wax xirta u diri kartaa Google Calendar Outlook Calendar Yahoo adigu waxa rabaa wax saas u diraysaa haddii aan la gaarin waqtiga meetingka oo aad soo geshid oo ID-gii aad gelisid passwordkii aad gelisid waxa uu ku leeyahay wali lama gaarin waqtigii sorry waxaan ka tagay malayna waqtigii yani haddii aan laga rulki waa kana qaabka maarta oo lagu soo xiriirayo waa kana meesha lagu soo geliyo waa intaan waaye haddii aan la gaarin waqtigii shirkadii aan la gaarin oo aad soo geshid wuxuu ku leeyahay shirkan waqtigiisa lama gaarin inta ka dhiman kuu sheegaya haddii 10 daqiiqo ka dhiman tahay 10 daqiiqo kuu sheegaya haddii hal saac ka dhiman tahay halka saac kuu sheegaya يعني iska soo gali maysido oo dal iska soo dhihi maysid ilaa waxaan waqti loo qabto waa kaasa 15 Abriil 2020 5 saac oo habeenimo oo wax saacada aan la socon way ka gudub qodobkaas waa isla fahnay waxaan u laabanayaa markaas suunki markaa u laabanaa suunki markaa u laabto waa kaasa waxaad tegaysaa meeshaan tagay meetingkan show baa leedahay waa kaasa show meeting Dakin Mohammed invite you to related Zoom meeting waa kaasa personal meeting room John meeting waa kaasa warut linkigaas oo kala maartay aad copy gareynay markaad copy gareysid waxaad dhigaysaa group-yada dhigaysaa waa kaasa shirku waa kaasa meesha waqtiga ay tahay asaga ku sheegaya waa kana today meeting student 5 saac oo habeenimo wuxuu dhamaanayaa 7 saac iyo rubi ileen waqti waxaan dooranay 1 saac 2 saac iyo 2 saac iyo rubi aan dooranay waa kaasa ID-gina waa kaasa kabacdina waxa kana waxa leedahay copy bas copy markaad dhigid meesha rabta u diri kartaa waxa ma ahan inaad maartay qofka lambarkiisa u dirtid oo kale ma ahan meesha rabta u diri kartaa waxa u dhigi Facebook isdaarta dhigi kartaa oo Facebook inta xagan ka tagtid ba post ku leedahay adartida qofka caadiga u tago qofka caadiga inta dul tagtid ba qofka caadiga maartay maxaa u diraysaa hadad uu maartay uu isticmaalo maartay maxaa Gmail haduu isticmaalo kale Gmail ka ugu diraysaa iyaduna waa iska siyaas waaye waa cashir aad u fudud oo xiiso badan marka waxaan jeclaan lahaa inaad ka faa'iideystaan cashirkan haddii aad wax ka fahmi weysaan qaybta dambe oo comment-iina ku soo fikirkiina ama waxaad ka fahmi weysaan igu soo reeba waan idin sharaxaya hadduu Ilaahay idmo saxaabta waxaan idinka codsanayaa inaad maartay subscribe like share intaas ba igu caawisaan waa mahadsantihiin